موعد inaan ka hadlo midka ugu horeeya waxa weeyaan qorsideeda bini aadamku ilaahay baa wada abuurtay ilaahay hadduu wada abuurtayna wuxuu siiyey samac iyo basar wixii xun isku diido wixii fiicanna uu ku aqbalo wixii danihiisaana awood uu ku qabsadaa ilaahay siiyey dabeecaddaas inagu wareegsan oo si kastaba aynu arkayno oo dabayl leh oo bad leh oo biri leh oo beer leh oo xoolo leh ilaahay bini aadamka ayuu ka saramariyey wuxuu siiyey awood uu ku bedelo uguna tasarrufo sida isagu isdoonay had walba ciddii fahamtay awooddaas weyn oo ilaahay siiyey waxbay ku qabsadeen dhibaatooyinka dabeecadda kaga imaanaya ama bini aadam kaga imaanaya markaa ugu tabaabushaysteen waxay ku qabsadeen waa anfaceen qolo walba noloshoodii ayay ku hanteen qoladii karteen waxay kaga baxeen faqaaradii waxay kaga baxeen jaahilnimadii waxay ku qabsadeen danahoodii ayay ku xaqiijiyeen kuna sugeen inaan dhibaato ugu imaanin ama ay dhibaatadii ka timaadaba ay uga gaashaanteen say uga hortagaan markaan sidaa leeyahay waxa weeye balorta awooddii ilaahay ina siiye ku camalfalkeedii allah ina garansiiyo shacbiga Soomaaliyeed bini aadamkaas kale tuu ka mid yahay oo badan haddana waa markaan leeyahay dal taajira iyo dad faqiir ah isku dul nool dadku faqiir weeye laakiin dalku taajir weeye ilaahay wax walba waa dhigay bad buu dhigay beer buu dhigay xoolo ka badiyay hawo fiican buu siiyay kulligeen shaarar baynu qabna 12 bilo shaararkaas qabayna adduunka meel badan kama dhacdo taas dhowr nooc oo labis waa in la isku bedela oo dhaxanta mid la isaga celiyo oo mid qorraxda la isaga celiyo oo mid dabaysh iyo balaayo waaweyn la isaga celiyo naga aad baa ilaahay noogu roona laakiin waxaad moodaa ama asal aqoon darro haynoo geyso ama isticmaarba hayna aaminsiiyo inayna waxba qabsan iyaga barino hayna aaminsiiyo haddana waxaad moodaa inaynu faqiirnimadii kuwa nool lahay sababihii la imaanhayeyna inaynaan dareemaynin sidaynu isaga caabii lahayn waxaad moodaa habkii ama tabtii aynu kaga bixi lahayn dhibaatada noocyada kala gedisan leh oo ama bini aadamku uu dalkeenna u geysanayo dadkeenna ama dabeecadduba haddaadan la dagaalamin way kula dagaalamaysaa awooddii alla ku siiyey aadan uga hortegin oo aanan wax ugu qabsanin inay ku hayso shacbigeenna dhibaato badan haddana waa dalkaa taajirka ah saanu sheegahayo dadkeennuse ma garan tijaaradaas ilaahay siiyey oo dadnimo oo dad fiican wey dadkeennu dad xun maaha iyo qaniimadaas ilaahay dalkooda ugu beeray nooc kastaba ha noqotay inay ka faa'iidaysan lahayiin faa'iido darradaasna ay ka imaanayso dariiqad aan habboonayn u fakerta ama ku shaqaysa weligoodna uu isticmaar lu ku leeyahay ajnabi uslug ku leeyahay intay iyagu taladooda iyo tabartooda iyo dantooda iyo dalkooda iyo naftooda iyo ilaahad inta aaminaan ay wax qabsan lahaayeen waxaad moodaa aad inay ugu janjeeraan cid kale inay wax ka sugaaneen waxaad cid tira ka sugtay ma ku dhergin karaane maya ma ku dhergin karo barya aadan ma ku dhergi karaysaa weligaa kuma dhergaysa wax kastaba ha lagu siiyo inta ugu xoolo badan adduunka hadday waxooda kugu shubaan weligeed ku deeqi mayso waxaad adigu gacantaada ku qabsato iyo maskaxdaada iyo taladaada iyo garashadaada waxaad ku qabsatay wax ku deeqi kara intaasaa jira oo uu la jiro iimaan iyo kalsooni aad naftaada iyo dalkaaga iyo diintaada aad ku qabto wax kaloo ku deeqi karaa ma jiraan soomaaliyey dantaada u jeeso iska daa indhahaad u taagayso dalal kaleeto iyo wixii ka imaanay warkacay aynu tabcanne beereenna aan tabcanno oo baddeenna kala soo baxna wax ku yaal oo xooleenna aan xanaanaysanno aan ku noolaanno wixii waxayna dheer aynu kaalmaysanno asaan cadow ku ahayn dalkeenna iyo dadkeenna arrinu intaas weeye diinta aan u gudbo nabigeennii suubanaa nabi maxamed tawrad buu sameeyey ilaah baa u dhiibay tawradda ku ahnayay tawrad buu sameeyey meel adduunka aad tagto aadan dad islaama ku arkayn yaa fidiyey waxa yaa gaarsiiyey tawraddii nabi maxamed loo soo dhiibay ilaah u soo dhiibay baa fidisay oo qof walba oo islaama taasaa saaran gacanku markuu dhashay waa shirinay waxaan hor dhegaysta waxaynu caabudnaa waa ilaahay weynaayo waaxid ah wuxuu inoo soo mariyey oo inoogu sheegay dariiqaan raacinayna kitaabkiisa kariimka ah
وإنه سودي بي رسول كان يسوع بنا إنه سودي هاي إنه سودي بي وحكى الكاس كسويف بحي فعلك يا قولك نبي وكتجي أياك كسويف بحي حديث بنور مركع قفل بالطريقة دي صحيح يستخدموا دونه لكن متك إن قد حيا واتير كاس طريقة الوضع لكن كاس وإلهي قدور شيء ومداس أنا أبورتي انت مدودان هكذا فرفر منا تاسو هالنقطة أصلك طريقة الرعاية كاس ويكون أخاك ما هاد إيه أمان بها وشيدنين هدان تاريخ الدب الراعو ولماذا اللي ترينا هي أمان التوريين اللي ترينا مقعيد هذا وهي كوي بدباديي كل بدتك الصوماليات إنه باقي كو هذا إسلام نوضه دولته مركي هاي قوارتو قوان أما الشرعي قرنك وديقو فلييال بيوبان فلييال كي هذيك ويان واحدين تويان طريقوين كويان مدحدا مساجد كويان يقع الربا إلي فلييال يجي وزارته يا مسؤول الدور صارن dagaalka labaad waxa weeyaan midka dhaqaalaha waad ogtiin macaashadu meesha ay sii marayso haddaynaan annagu inta marada dhexda ku xiranno adkaysano aynaan tabcina weligaan ka bixi mayno gun iyo gacan horsi baan u dhammaanaynaa ma gun iyo gacan horsi baan ku jiri karnaa insaanku sharaf buu leeyahay karaam buu leeyahay oo maanu inta ilaaheen cuskano iyo nafteenna maynu qof iyo yaanba inta qaato waa ka halkaa dow ka baxaya maanu wax ku abuurno بالقفل ويقول يسموه كو أبور جيد لما إنه بحيين كهاركه أو جيد ببايا كو أبور أو جيد عمبا كو أبور وابحا يقف كل يسوس بحيين مجد تورتيس وحنك قبحي كرنا إنا نوچه سنطعب كي بد قلا هقلو كي بري قلا بيرها كدونتو كي حورا يستا حتى بعضها حنانا يستو كي وحكالتو أو قيمة لك خوانا هي حقبتو قف قاچه سنو قب معه قنوي wixii la rabo iyo dantii la raba laga sameystaa oo maxaanu kalifay inaanu saas u gubowno dadkeena inaan jahayna doonaya inaga la rabaa inaan jahayno tan saddexaad waa dagaalka shacbigeena lagu abuuray in maanta 16 sano kadib oo dulligii foosh xumaa aynu ka soo baxnay dad ahaan iyo qaran ahaanba haddana la doonaya dib in loogu celiyo qabiilkii xumaa oo isticmaar ka dambeeyo waa isticmaarka xabashida waxa loo baahay ummadeena inaynu hanuuno oo culimadiina waaweyn waliba aad marada dhaxda ugu xirataan ayaa loo baahay waxa loo baahay inay ku tasaasiyaan oo kor ugu hadlaan oo si geesinimo ugu hadlaan inay ummadooda toosiyaan oo ka hanuuniyaan dariiqa jahannamka dariiqa muslimka ay ku leexiyaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi